arrintii ninkii aanu saaxiibka ahayn aanu golaha wasiirada ku wada jirnay imankana hogaamiyaha la yidhi weeyaan aanan weli fahmin hogaamiyuhu wuxuu yahay ma garatay horyaalada oo shuruucdii xisbiyada ka baxsan in isfaanshi waa riis nuugtay dhammaanteen waxaynu wada ahayn haddaynu nahay raggii halkaas ahaa kaaliyayaasha madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo haddaan hal qodob ka idhaaho xagga waddooyinka ama gaar ahaan waddada wadnaha ee ku taalla saad ka wada qabtaan ee ceere gaabo xirsi oon saaxadda ku jirin buu siilaanyo maskaxda ku hayay dowladdii maxamed siyaad barre markay jirtay siilaanyo berigu qorshaynta haystay qaranka soomaaliya oo ahaa wasiirka qorshaynta ayuu wuxuu soo geliyey oo caan soomaaliya oo dhan nin kasta uu garanaya ay tahay in la siiyo in soomaaliya waxaan ku dhahday in la sameeyo waddadaas ku xidha burco iyo ceergaabo markuu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waddada ceergaabo maskaxda ku hayay umalayn maayo dabala xirsi miyuu jiray dee ma garanaye anugu ma fahamte inuu jiray iska daa inuu tala ka ogaay iyo baalkii adhooti inuu jiray hadduu jirayna de wax badan muu jirin baan leeyahay ma fahamte hadda waa ayaan daro waana nasiib daro waana siyaasad la-aan markaad aragto ama qof aan fahmin systemka iyo nidaamka dowladnimo wuxuu u shaqeeyo markaad madaxweyne wuxuu noloshiisa ku hamiyey oo dhan aad adigu sheegato aad iyo aad ayaan waxa weeye haddii wasiir cadaani uu ka jawaabay oo shalay ila shaqaynayay waa nasiib wanaag isagaa markhaatiga ahaa laakiinse nasiib wanaag haddii isagu ka jawaabay oo kii ila socday ee cergaaba ila tegey ee maraykan ila tegey ee kanada ila tegey ee igala shaqaynayay ee gacan yaraa iga ahaa ee ka dul ooyayay hadduu isagu ka jawaabay waa nasiib wanaag nin kale aan war lahayn baa maanta odhan lahaa dee waa war la'ya dadka reer somaliland dadkaa maraga ma aha qof la ismaqashiin maayo bulshada reer somaliland baa ka maraga judgmentka iyo xakamku waa bulshada waxaan waddada ceergaabo ahaa qofkii hirgeliyey wax igula murbi kalaana ma jirto madaxweynuhu inuu hindisay oo maskaxda ku hayay oo programka ku qoray oo uu leeyahay ammaanteeda iyo waxa weeye libteeda leeyahayna halka markaan hadlayn hore uma dafri markaan dafri waligan dafri maayo madaxweynuhu wax qabtay buu ahaa anigu waxaan qabanayay kii diray buu ahaa anigaa si fuliyey caddana waa wasiirka warfaafinta wuxuu ku faanaha fuliyo wuxuu ku faano wasiir waliba wasaaraddu joogo waxa uu ku faanaha fuliyo madaxweynuhu wuxuu leeyahay libteeda wasiirkii fuliyeyna wuxuu leeyahay in libteedu leeyahay oo uu la leeyahay anaan madaxweynaha iga dafirsanin oo ma raba dafirin xaasha aan ka dafirayn oo ahaa madaxweynihii qaranka ee himiladan lahaa ana kii hirgeliyay baan ahaa hadduu dafiro caddaani bulshadaan isula tegi doonaayo waa waxa cergaabo kaa soo raaca